xaflad loo sameeyey musharaxa xisbiga ucid Jamaal Cali Xuseen ayaa lagu qabtay Hotel President ee caasimadda Helsinki waddanka Finland. xafladan ay soo agaasimeen xisbiga ucid laantiisa Finland waxaa ka soo qayb galay madaxda xisbiyada qaranka, guddoomiyeyaasha jaaliyadaha Somaliland, Helsinki iyo Turku, xildhibaano ka socda golaha deegaanka degmooyinka Fanta iyo Turku, madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Finland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaa ugu horeyn halkaasi hadal soo dhaweyn iyo mahadnaq isugu jira ka jeedisay guddoomiyaha garabka haweenka xisbiga ucid laantiisa Finland, Saamiye Cumar Xaaji Muuse, waxaana hadaladeedii ka mid ahaa: mudanayaal iyo marwooyinba, waxaa caawa sharaf noo ah soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha ee mustaqbalka mudane Jamaal Cali Xuseen. waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta leh ee caawa inagala soo qayb galay xafladan caawa. munaasabadan caawa waxaa si wada jir ah u soo abaabulay laanta ucid ee Finland. waxaa iyaguna ka hadlay madashaasi guddoomiyeyaasha xisbiyada qaranka iyo guddoomiyeyaasha jaaliyadaha, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale. waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: mudane Jamaal Cali Xuseen, murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga ucid. caawana waxaan leeyahay soo dhawow, gacmo furan, wejisan, welcome to Finland. waxaa caawa farxad weyni ah inaan ka soo qayb galo xafladan ay taageerayaasha xisbiga ucid ay u qabteen musharaxooda madaxtinimada Jamaal Cali Xuseen. rag iyo dumar marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan ballaaran ee aanu u samaynay musharaxayaga xisbi qarameedka cadaaladda iyo daryeelka ee ucid mudane Jamaal Cali Xuseen. waddankeena Somaliland iminkaan ka soo noqday, bishii 8 baan ka soo noqday. waxyaabo aad u badan ayaan sanad walba kala soo kulnaa oo qiimo leh. dhaliil way jirtaa oo waa tan la sheegayay, laakiinse dawlad kasta iyo waddan kasta way leedahay. waynu wada ogsoonahay walaalayaal, shacabkeenu 70% waa dhalinyarana codaysan. Jamaalna waynu ogsoonahay waa musharax caalamka ka soo shaqeeyay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa tiisa daryeela tu kala ku tala. markuu waxbarashadiisii iyo shaqadiisii iyo aqoon kororsigiisii soo dhamaystay, wuxuu u soo xakameeyay inuu dalkeedii wax ka qabto. waa mid loo baahan yahay. soo dhawow Jamaal Cali Xuseen oo musharaxa mustaqbalka iyo fanaanadeena weyn ahna mujaahidad Sahra Axmed Maxamuud. waxaa la ku soo dhawow ka soo qayb qaadano mas'uulka qaranka ah ee inoo yimid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen. runtii markuu ninka musharaxii u safrayo wuxuu safarkiisu ku saabsan yahay inuu u howlgalo oo ogaado dadka uu doonayo mustaqbalka inuu madax u noqdo duruufaha ay ku nool yihiin gudo iyo dibadda si uu uga warhelo. waxaa isaguna khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo dhagaha dadka soo jiidatay madashaasi ka jeediyey musharaxa madaxweynaha xisbiga ucid Jamaal Cali Xuseen, waxaana hadaladiisii u dhignaayeen sida tan: wixii aan qalad waragnana aan sheegnaa ama hana laga dhigayso miyana laga dhigayso anaga awood ma lihi waan sheegnaa. awoodda ay wax lagu qabto waxaa iskale dastuurku siiyey labada golaha gursida iyo golaha baarlamaanka. laakiin anagu waxaa la siiyey awooddii mikrofoonka dastuurka la siiyey dadka u sheega marka waxaa qaldan yihiin oo war wadadaa ka jooga, war halkaa libaaxyaa jooga, war halkaa dhibaataa ka dhacday inaan ahno wey. marka anagu marna ma jeclin inaan waddanka gudoomino, waxaan jeclayn waddanku horumaro oo laftarkaygu landhab baan ka leenahay. hadduu ilaahay nagu guuleeyo meel hagaagsan oo wanaagsan oo lasiga shisha inaan oo kasii horumarnaan dee jecla. laakiin meel baaba'san oo la isku laayay haddana si looga soo bilaabno anaga dhibaatay lagu tahay. marka intereskaygu wuxuu ku jiraa mar walba in waddanku hagaago. oo Sheekh Shariif oo Soomaaliya madaxweyne u ahaa, anu 2 sano baa ku yimid. weli cid ku tiraahda madaxweynaha daaqaya ee Sheekh Shariif ka dhashay
والسومال لا بيكشن هذا وين كان الله سبحانه وينام والعز كان وين هذا يا ناس يا حواليا واحد كل ده واحد مدير اسمه أغنية سومالي تقولي معلم هي هابرين يعني يقول لك شيء ملاحظة المستقبل كات ملاحظة المستقبل يقول لك شيء فأنا هذا يقولي وأوصي أنا الله يكون تشبه waxaa madashaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xubnihii qabanqaabada xafladda geesta kalena waxaa musharaxa la guddoonsiiyey shahaado sharaf laanta xisbiga ucid ee Finland ugu tala gashay gabagabadiina waxaa heeso wadaniya halkaasi ka soo bandhigtay fanaanada Sahra Halgan Aadan Yuusuf Cismaan Hotel Sogas Presidenti caasimadda Helsinki Finland